Daawade waxaan kula wadaagayaa arrintii ahayd xildhibaan Barkad Batuun iyo waalidkiisa ayaa ka falanqeeyay arrintii ahayd xildhibaan Barkad Batuun oo hadda kahor oo sheegay Mushtaaq odayga xaajiga ayada adeerkeeda oo aabaheeda ayaa wuxuu sheegay inuu sharci ku qabin siduu ka dhawaajiyay adeerkeeda Mushtaaq oo hadda sheegay in xildhibaankii ayada xiriirka markii la isku darayay arooska u dhacay uu taagnaa oo asigana marqaati ka ahaa odayaal sheegeen in arooska ayagana marqaati ka ahaa ayaga isku dareen oo arooskaasna raali kaga aabooda uu kaliya mucaarad ku ahaa Mushtaaq oo aabeeda kaliya mucaarad ku ahaa oo diiday in arooskaas uu dhaco oo ayada ninka jecleed adeerkeeda uu ku daray xildhibaanka oo odayaasha oo asiga waxay u yihiin waalidkiisa ayagana falaqeeyeen arooskaas inuu aroos run yahay oo dadkaasna lamaano isjecel oo nolosha inay qaybsadaan rabay ayaa odaga aabeeda hortaagnaa caqabad ku ahaa adeerkeeda ayaa garab istaagay sidaas ayaa loogu daray xildhibaan Barkad Batuun iyo Mushtaaq oo hadda hal cunug haasto bal daawade waxaan kula wadaagayaa arrinta aabeeda markuu afku furtay uu maqlay guurkeeda ayuu social media soo fadhiisay uu ka dhawaajiyay markiisii hore ayuu dhahay inantiina sharci kuma qabo iska haastaa gurin way ula nooshaa adeerkeeda oo arrinta falaaqeeyay ayaa wuxuu dhahay Mushtaaq adeerkeeda baan ahay dadkaaniitan waa wadaadada isku daray aniga ayaa kifaalo qaaday gabarteeda arooskana waa aroos jiro oo sax ah arrintaas oo ka dhawaajiyay in arooska uu sax yahay ayaa adeerkeeda ka dhawaajiyay Mushtaaq kaliya maahan cidii xildhibaan Barkad Batuun ayaa ka dhawaajiyay dadkaas inay ahayn dad isjecel lamaana raba inay nolosha isla qaybsadaan kaliya uu ahaa Mushtaaq aabeeda caqabad ka hortaagan daawada waxaa si sharaf la kaaga codsanaya haddii Soomaalinimo jirto inaad janaalka subscribe dhaad gambaleelkan u furto muuqaalkan waa inaad like la dhacdaan asxaabay daawada marka arrinta jirta ayaa waxay ahayd arrin family ah Mushtaaq iyo aabeeda cilaaqaad yar haasto darteeda ayuu ninkaas odaga u qaadan waayay markuu diidayna ayaa lagu daray uu maqlay ayuu social media soo dhex fadhiisay ayuu arrimo badan aad ugu dhawaajiyay in uusan u rabin wiilkeeda oo gabartiisa u rabin wiilkaas oo sheegay inuusan u rabin gabadhiisa oona ka dhawaajiyay arrimo badan oo gabadha sharci oo aad u xun uu ku haasto oo guri ula nooshaa sharciyana oo ku haasan odaga aabeeda ayaa saas ka dhawaajiyay bal daawada muuqaalo aad kaaga yaabinaya kula wadaagaya soo dhawow daawada meherkaas xilligaa uu dhacay boorama uu ka dhacay aduu kii meheriyaa tahay ma wallaahi ba ayaa igu wallaahi oo igu billaahi suma wallaahi waan ku celinaya ninkan Mushtaaq daawada waxaan si sharaf leh kaaga codsanayaa haddaad muuqaalka soo daawato fadlan waa naga codsi janaalka noo qurxi haddii Soomaalinimo jirto janaalka subscribe noo dheh gambaleelkana u furo waa intaasoo kaliya codsigeena daawade hanaga tagin daawade muuqaalkana noo like garee